بلان قاد إناد إيشيجي دونتي تانيا إلهي عدمان كهايا وعدمان سكورة وليبا مركز أنا قوم مسكحتي دفدينين أو قرآن سارك قصة ضدك أنتيري فيديو على قدو بحاسكي كدوطي ما شاء الله أنا قبعن هذا عدين تسميل سارمتها marka in dadka ma badan yihiin mise hal qofood waa saacad saddex qofood waa saddex qofood oo waliba ku dhow ma sha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وشوعا ونكسن صاحب بيال ملك سوديو كجكتون واحد كعصان هيا حدي داونيسو إن ماشي نكلك عزده أو سبسكرايب سارت aad ما سنتا بقول waxaan rabaa xaqiiqdii in aan commentier ka bixiyo xaqiiqdii arrin soo kordhay oo la soo kordhay walaalkeen Yackow oo barihan aad aragteen social media isagoo dhahaya waa la isxiray balaaya lagu sameeyay kulli dadku way og yihiin ama waa malaynayaan dadka waxa ku sameyn kara ama dadka waxa laga malaysan karo kulli cid ku sameysay ee looga shaki qabo waa cid shaashada baraha bulshada ay dadka social media macnaha bulshadu ay ka daawato oo macnaha bulshada indheheeda waa maxay waa dadka shaashada laga daawado Soomaa kulli waxaan anigu shakhsi ahaan aaminsanahay qofka waxa ku dhiiraday ama sameeyay in ay yihiin dad social media ku jira in ay yihiin xaqiiqdii sida aan ognahay ninka la yiraahdo Babajay ee Muqdisho jooga ee dhalinyarada badan ay wax soo duubaan waxa la sheegaa ama dadka yaqaan ay sheegaan in uu ku taadiyo dadka oo in yar awood ah ama maaragtay dhalinyarada gurigiisa imaata ee wax ku dubta ee kamaradiisa studios isticmaala waxa la sheegay inuu awood ama power u sheeganayo oo uu leeyahay aniga marka hore waxa la ii sameeyay inuu leeyahay marka aniga video la ii duubo la ii edit gareeyo la ii post gareeyo marka ka bacdi ayaa waxa la duubi karaa dhalinyaro badan oo sida tiraahdo waan arkay waxaan kaloo arkay dad ay Babajay isla ceesheen oo waqti badan ay isla noolaayeen oo yiri waa Babajay waxaasha geel cunta ee cabaadaha dad yiri baan arkay waxaan kaloo arkay dad yiri macnaha qofkaasu waa xaasid oo macnaha ma ogola qof walaalkiis hormar ma ogola okay haddaba dadka qaar ana shacabka wax daawada waxay ku qiimeynayaan ama ay aaminsan yihiin arrinta inuu Babajay iyo kuwa la jooga ay yihiin bay ku qiimeynayaan laakiin xaqiiqda Ilaahay baa anagu ma og mid kale ayaa jirta Yackow wuxuu yiri waa saddex qof buuri macnaha saddexda qofna ma sheegayo anigu laakiin waxaan kula dardaarmi lahaa ama Yackow hadii uu maqlay nin rag ama tida dad soo bandhigay sababtoo ah waa sharci waa diiniyan qofka munaafiqa ee lunaarka ee la soo bandhiga si la iskaga jira ama bulshadu ay iskaga jirto laakiin hadda dadka u qariso macnaheedu waxay tahay Yackow waxa ka mid noqonaysa dhibaatada ama dulmiga bulshada lagu hayo ayaa ka mid noqonaysa marka waa inaad dulmiga iftiimisaa waxaad yiri ilaahay xaqii baan ka noolahay waa sax qofku sixray ilaahay xaqii baad uga noolaanaysaa asaga xaqiisa kama nool qof dhibaato kula maagay xaqiisa kama nool xaqii ilaahay baad ka nooshay laakiin in aad qaarisaa waa fool xumo adigana kugu dameer xumo ah oo jilaa waxaana la waaweysanaya ama la aaminayaa in mar kale wax lagu sameeyo ayaa macnaha la hibaysanaya oo la damcaya marka samaynin ama in takalmid baa khalad anigu aan aaminsanahay waxa khalad ah qofka noocaas ama dadka sidaas kula dhaqmay in ay waalidka ku dhahaan qari arrin fool xun weeyaan waalidka marka ay ku leeyihiin qari waxay ka qayb qaadanayaan dhibaatada qof walaalka ayaa bari sida lagu sameeynaya oo dhibaatadan la gaarsiinaya marka qofka walaalkaaga inta bari dhibaatadan lagu sameyn lahaa inaad haddaba iftiimiso si la iskaga jiro ayaa wanaagsanaan lahayd Yackow ku socdaa warkan waxaad kaloo tiri haddii mar labaad lagu sameeyo arrintan meel xun gaari ma aaminsan anigu mar labaad iyo mar saddexaad lagu sameeyo meel xun gaaraysa Yackow way sababtu tahay
marba haddii dhibaatadan la arkayo ee aad bulshada la soo dhex fadhiisatay dhibaato aad bulshada la soo dhex fadhiisatay dhibaato yar maaha dhibaato aad bulshada la soo dhex fadhiisatay dhibaato yar maaha oo aad tiri Soomaaliyay dhibaatadaas la ii geystay marba haddii aad qarinayso marba haddii aad dadka wax ku siimeynin marba haddii aad daah ku dadayso oo adigiina dhibaatada horta qofka lagu sameeyo waa adiga برينا قف كلا يقسم هنيان بلسه إن القرصة شرع ما هم بع معناها مو ونك سنة توتر بين السنة بكون مو ونك سنة معناها مركا وحن لها يعكو أرنتا وأنا تصوب عندكتا عديمي هذا وأنا كنتا تتكأيه وأنا بنانك كنتا سيب بالشدو إسكيتر تقطعان ينتشاسدا يوثق أن تتكن إيمانك بعلي بالشدة يا إسلام ماذا كنا بحي يبالغ سل إن أتصاب بنكتو أي ونكسنان لهيد وقرح بنان لهيد حدي القرصنة وحي معنيدو تهي إن أكقب قادنا يسوق لبعضها بالشدة كل عيسى تعذيب كل عذاب طول من يعمل ولا الكا كل عدونتا مثلا تكلا إن أتصاب بنكتو أشر بابتكيه ليس هذا إن أتصاب بنكتو أشر بابتكيه ليس هذا waalidkaaga inay ku dhahan qarina ma aha ma fahamteen in aad sharciga la tigsato oo ayagana aad magaranaysaa dhibaatada ay ku geysteen dhibaato la mid ah la gaarsiiyo oo sharciga la keeno ayaa waanaan lahayd oo wanaagsanaan lahayd balse Yackow ma aadan noqonin ku sameeya sidii wanaagsanayd ee fiicnayd aad iyo aad baa maasantay daawashada video حقيقي سيدا أنو أغنهي نينك اللي يراهدو باباجي مقدشة جوغا dhalinyarada badan ay wax soo duubaan waxa la sheegaa ama dadka yaqaan ay sheegaan in uu ku tacdiyo dadka oo in yar awood ah ama maaragtay dhalinyarada gurigiisa imaata ee wax ku duubta ee kaamiradiisa iyo stuudiyoisa isticmaala waxa la sheegay inuu awood ama power u sheeganayo oo uu leeyahay aniga marka hore waxa la ii sameeyay inuu leeyahay marka aniga video la ii duubo la ii edit gareeyo la ii post gareeyo marka ka bacdi ayaa waxa la duubi karaa dhalinyaro badan oo sida tiraahdo waan arkay waxaan kaloo arkay dad ay baabajay isla ceesheen oo waqti badan ay isla noolaayeen oo yiri وبابجي وهاشا جيل عنتا عبادة تدي يري بان أركي وحان كلو أركي تدي يري معناها قف كاسو وحاسد ومعناها ما أقلا قف ولا الكيس هرمر ما أقلا أوكي حتى تدكا قار أنا شعبك وحدا والله waxay ku qiimeynayaan ama ay aaminsan yihiin arrinta inuu baabajay iyo kuwa la jooga ay yihiin bay ku qiimeynayaan laakiin xaqiiqda ilaahay baa anagu ma ogi mid kale ayaa jirta Yackow wuxuu yiri waa 3 qof buu yiri macnaha 3 qofna ma sheegayo anigu laakiin waxaan kula dardaarmi lahaa ama Yackow haddii uu maqlay nin rag ama tidada soo bandhigay sababtoo ah waa sharci waa diiniyan qofka munaafiqa ee lunaarka la soo bandhiga si la iskaga jira ama bulshadu ay iskaga jirta laakiin hadda dadka u qariso macnaheedu waxay tahay Yackow waxa ka mid noqonaysa dhibaatada ama dulmiga bulshada lagu hayo aad ka mid noqonaysa marka waa inaad dulmiga iftiimisaa waxa tiri ilaahay xaqii baan ka noolahay waa sax qofku sixray ilaahay xaqii baad uga noolaanaysaa asaga xaqiisa kama nooli qof dhibaato kula maagay xaqiisa kama nooli xaqii ilaahay baad ka nooshay laakiin in aad qarisaa وفول حمو أذيعنا قوة ضمير حماء وشلاء وحنا لو هويسنيا أما الأمنية إن مركلة وحلقوا صمي يا معنا اللي هي بيسنيا أو لضم عيا مركا صمين أما إن تكلم من داخل ده أنا وأنا مثلا وح خلدا قف النوع عس أما ضدك السلاح سكوران رغمي إن أي والدك رهان قري arrin fool xun weeyaan waalidkaagu marka ay ku leeyihiin qari waxay ka qayb qaadanayaan dhibaatada qof walaalkaa ayaa bari sidan lagu sameynaya oo dhibaatadan la gaarsiinaya marka qofka walaalkaaga inta bari dhibaatadan lagu sameyn lahaa inaad haddaba iftiimiso si la iskaga jiro ayaa wanaagsanaan lahayd Yackow ku socdaa warkan
waxaad kaloo tiri haddii mar labaad lagu sameeyo arrintan meel xun ba gaari ma aaminsanaa anigu mar labaad iyo mar saddexaad haddii lagu sameeyo meel xun gaaraysa Yacoob way sababtu tahay marba haddii dhibaatadan la arkaayo ee aad bulshada la soo dhex fadhiisatay dhibaato yar maaha dhibaato yar ma aha oo aad tiri Soomaaliyay dhibaatadaas la ingeyst marba haddii aad qarinayso marba haddii aad dadka wax ku siimeynin marba haddii aad daah ku dadayso oo adigiina dhibaatada horta qofka lagu sameeyo waa adiga berina qof kale ay ku sameynayaan balse in aad qariso sharciba ma ahanba macnaha ugu wanaagsanaba totalba istinaba kuma wanaagsana macnaha marka waxaan dhihi lahaa Yacoob arrinta waa inaad soo bandhigtaa cadeymaheeda waa inaad keentaa dadka ay yihiin waa inaad banaanka keentaa si bulshadu ay iskaga jirto qodxaan iyo nijaasadan iyo wasaqdan dadkan iimaanka beelay ee bulshada iyo islaamnimada ka dhaxbaxay ee bahalka ah si la iskaga eego in aad soo bandhigto ayaa wanaagsanaan lahayd oo qurux badnaan lahayd haddii aad qarisana waxay macnaheedu tahay in aad ka qayb qaadanayso dhibaatada bulshada ku dhacaysa ta adiga kugu dhacday tu lamid ah ayaa mid walaalkaa ku dhici doonta ta kale in aad soo bandhigto ajir baad ka helaysaa waalidkaaga inay ku dhahaan qarina ma aha ma fahamteen in aad sharciga la tigsato oo ayagana aad magaranaysaa dhibaatada ay ku geysteen dhibaato la mid ah la gaarsiiyo oo sharciga la keeno ayaa waanaan lahayd oo wanaagsanaan lahayd balse Yacoob ma aadan noqonin ku sameeya sidii wanaagsanayd ee fiicnayd aad iyo aad baa mahadsantahay daawashada fiidiyoga tan inta noqon doona waxaan ka tagay